wada calansida media fadlan haddii aan ugu cusub tahay subscribe saar oo gabeelka furo wararkii ugu dambeeyay dowladda federaalka Soomaaliya oo fadeexad weyn soo food saartay isla markaana 18 milyan oo dollarka Mareykanka bangiga Muqdisho ama bangiga dowladda federaalka Soomaaliya laga waayay isla markaana hanti dhowrka qaranka uu soo bandhigay in 18 milyan ay ku maqan tahay xafiiska ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayri iyo madaxtooyada Soomaaliya iyo dhammaan dowladda federaalka Soomaaliya hase yeeshee warbixintaas ayaad ku daawanaysaan sidoo kale Kenya oo jawaab culus ka soo bixisay dacwadii laga geeyay diyaaradii ka soo degtay jibisay xeerkii xayiraadda dowladda ay saartay Kismaayo isla markaana dacwad la yaab leh markii gudbisay Soomaaliya jawaab culus ka soo dhigtay gudoomiyaha gobolka Hiiraan oo asna kulamo xasaasi ah ka wada jallaqsi warkaasi ayaad maqlaysaan daawadayaal subscribe saar oo gambeelka furaha hase yeeshee aan ku hormarno hanti dhowrka guud oo lacag ka badan 18 milyan dollarka Mareykanka ka maqan deeqdii la siiyay dowladda federaalka Soomaaliya ayuu yiri warbixintaasi oo fadeexad weyn ku noqotay ayaa la soo daawacay hanti dhowrka guud ee qaranka Maxamuud Cali ayaa soo saaray warbixin ugu cuslayd uguna dhameystirnayd ee uu ku saabsanayd isticmaalka miisaaniyadda dowladda Soomaaliya ee sanadkii 2018 iyadoo lagu soo bandhigay lacagta ka maqan deeqihii caalamka siiyay dowladda Soomaaliya asigoona soo bandhigay aadna u soo bandhigo la yaabay lacagtaas halka ay ku maqan tahay warbixinta hanti dhowrka oo ah mid dheer oo dhinacyo badan taabanaysa sida madaxtooyada baarlamaanka xafiiska ra'iisul wasaaraha iyo wasaaradaha oo dhammaantood ku lug yeeshay maamul xumo maaliyadeed iyo xisaab celin la'aan ayaa waxaa si gaar ah ugu muuqda in lacag ka badan 18 milyan dollarka Mareykanka ah oo sanadkii 2018 loogu deeqay dowladda federaalka aysan ka muuqan xisaab xirka miisaaniyadda dowladda isla markaana gabi ahaanba bangiga aan lagu soo shubin aysan yeeshay dowladda ay gacanta u soo gashay laakiin bangiga baalmartay hanti dhowrka guud ayaa warbixintan ku sheegay sida soo socoto soo koobida jahwareersan ee kaalmada dibadda falaqaynta kor ku xusan kaalmada dibadda ee sanadka waxaa la dhimay ugu yaraan 18 milyan ee dollarka Mareykanka maxaa yeelay dhammaan kaalmada dibadda ee la siiyay dowladda federaalka Soomaaliya ayaa lagu soo wada wareejin khasnada dhexe ee dowladda si uu ugu warbixiyo xafiiska xisaabiyaha guud sida darteed lacagta cadaanka ah iyo midda cadaanka u dhiganta iyo miisaaniyadda dheeriga ee dhammaan sanadkii la soo dhaafay 31 December 2018 ayaa waxaa lagu dhimay 18 milyan oo dollarka Mareykanka faahfaahinna waxaa lagu sharaxay jadwalka hoos ku qoran ama hase yeeshee sida warbixinta u sheegay midowga Yurub oo dhiibay 17 milyan oo dollarka Mareykanka ah boqortooyada Sacuudi Carabiya oo ku deeqay 20 milyan oo dollarka Mareykanka ah UNOPS oo ku deeqay 1 milyan oo deeq ah lacagta waxay isku noqonaysaa 38 milyan 259,559 dollar ayay noqonaysaa hase yeeshee waxaa qasnada ka maqan oo gabi ahaanba la lunsaday 18 milyan 386,000 oo dollarka Mareykanka ah hase yeeshee warbixintaas ayaa laga sugayaa inay ka soo jawaabaan hay'adaha dowladda gaar ahaan xafiiska ra'iisul wasaaraha iyo dhinaca kale madaxweyne Farmaajo madaxtooyada Soomaaliya waxa ugu muhiimsan oo madaxweyne Farmaajo sameey jira waxay ahayd in cadaalad loo helo lacagaha dhaqaalaha ee ka soo xarooda dibadda isla markaana bangiga si toos ah loogu hayo hay'adaha dowladda qaarkood ayaa la sheegay in lacag badan ay qabteen dibna u isticmaaleen hay'adaha ayaa qabtay wadarta dakhli gaaraya 1 milyan 350 oo dollar iyagoona dib u isticmaalay taas oo balmarsan xeerka xisaabta guud ee dowladda federaalka Soomaaliya hase yeeshee wasaaradaha wax qabtay ayaan halkaan ku faahfaahineynaa daawadayaal subscribe saar warbixinta hanti dhowrka ayaa lagu sheegay in wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada qabatay dakhli dhan 83,000 oo dollarka Mareykanka dib ayay u isticmaashay hay'adaasi hoggaanka baarista dambiyada marka la soo gaabay lagu magacaabo CID-da ee ciidanka booliska Soomaaliya waxay qabteen 577,000 oo dollarka Mareykanka dib ayayna u isticmaashay hay'adda duulista rayidka waxay qabatay 130,000 oo dollarka Mareykanka ayana dib ayay u isticmaashay jaamacadda ummadda Soomaaliyeed waxay qabatay 556,000 oo dollarka Mareykanka dib ayayna u isticmaashay haddaba warbixinta ayaa deeqaha caalamka ah oo ay heshay dowladda federaalka isla markaana ugu deeqday midowga Yurub boqortooyada Sacuudi Carabiya iyo UNOPS
ayaa wadarta deeqda waxaa lagu sheegay 38 milyan oo dollarka Mareykanka ah hase yeeshee halkaasi waxaa ka maqan 18 milyan lacagta deeq bixiyaasha caalamka oo ay ka heshay dawladda Soomaaliya ayaa warbixin lagu sheegay in ay ka maqan tahay 18 milyan hase yeeshee fadeexad weyn ayay ku noqotay maamulka iminka hadda talada haya dhinaca kale haddii aan u daleecno gudoomiyaha gobolka Hiiraan oo si degdeg ah ku tagay degmada Jallaqsi isla markaana xiisad weyn ay ka taagneed kadib markii isbuucii la soo dhaafay ay isku fud saareen ciidamada Djibouti iyo maamulka halkaasi ka dhisan ee degmadu leedahay gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Maxamed Caraale oo gaaray degmada Jallaqsi ayaa kulamo xasaasi ah ka bilaabay halkaasi si uu halkaasi khilaafka u soo afjaro kulamada oo ah kuwa xal raadin ah ayaa waxa uu gudoomiyaha la qaadanaya maamulka Jallaqsi iyo saraakiisha ciidamada Djibouti oo dhawaan ku dagaalamay deegaankaasi isla markaana muddo badan halkaasi khilaaf oo ka jiray ujeedka wafdiga gudoomiyaha gobolka Hiiraan ayaa ah sidii xal waara looga gaari lahaa xiisada haatan ka taagan magaaladaasi wararka ayaa sheegaya in wali kulamadu ay socdaan isla markaana la filayo in goor dhow la soo gabagabeeyo xiisadan ayaa saameyn ku yeelatay guud ahaan xaaladda degmada oo muddooyinkii dambe laga dareemayay dhaqdhaqaaqyo u dhaxeeya labada dhinac sidoo kale waxaa xiisada tan la mid ah ka dhalatay degmada Buuloburte ee golaha deegaanka ay ka taagan tahay degmada Buuloburte ee gobolka Hiiraan taas oo sababtay in xilka laga qaado gudoomiyihii degmada Cabdicasiis Duuro walow uu ka hor yimid xilka qaadistaasi Hiiraan ayaa waxaa ku soo laalaabtay khilaaf aad u xoogan dhinaca maamulka taas oo la sheego inay sabab u tahay isbeddelka alaaba lagu sameeyo mas'uuliyiinta halkaasi jooga waxaana la filayaa in gabi ahaanba xaaladaas oo soo afjar gudoomiyaha dhinaca kale dawladda Kenya oo jawaab culus ka bixisay dacwadii ay dawladda Soomaaliya ka gudbisay ee diyaaradii Kenya ka soo duushay isla markaana jibisay xeerkii xayiraadda Kismaayo isla markaana Kismaayo keentay dad oo mas'uuliyiin oo caan ah sarkaal ka tirsan dawladda Kenya ayaa jawaab adag ka bixiyay dacwadda ay dhawaan Soomaaliya u gudbisay hay'adda maamulka hawada ee ICAO ee qaramada midoobay isla markaana lagu sheegay inay Kenya ku soo xadgudubtay qarannimada dalka Soomaaliya sarkaalkan oo la hadlay wargeyska Daily Nation ayaa sheegay in aysan wax shaqo ah ku lahayn diyaaradii siday madaxweynayaashii hore ee Galmudug iyo Koonfur Galbeed ee dhawaan ka degay garoonka Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose isla markaana aad loogu soo dhaweeyay sidoo kale waxa ay saraakiisha sheegeen in Kenya ay u hoggaansan tahay xeerka caalami ah isla markaana aysan marnaba ku xadgudbin hawada Soomaaliya waa sida uu sheegay sarkaalkan Daily Nation la hadlay ugu dambeyntii waxa ay tilmaameen in dawladda federaalka ay xaq u leeyihiin inay qabato diyaaraddaas isla markaana ay difaacato hawadeeda ayuu yiri sarkaalkan dawladda Soomaaliya ayaa dhawaan xayiraad saartay Kismaayo balse waxaa jibisay diyaaradii ka timid Nairobi taas oo dawladda ku dacweysay hay'adda hawada ee qaramada midoobay ee ICAO si wax loogu weydiiyo dalka ay ka timid oo ah Kenya arrintan ayaa soo xoojisay xiisada labada dal oo markii horeba isku hayay muranka badda oo haatan dacwadiisu ay ka furan tahay maxkamadda sare ee adduunka hase yeeshee Kenya ayaa daadaansigeeda sii wado dawladda Soomaaliyana dulqaadkeedii ayay weli haysaa hase yeeshee bisha soo socotay November ayaa lagu kala bixi doonaa wixii halkaas ka soo baxa warkaasi warar kale oo caalami ah daawadayaal waxaad ka daawanaysaan على سيدا ميديا فضلا سبسكرايب سارو جنبالك فورو وداو وركي ugu dambeeyay oo xiiso leh